بسم الله السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحابتا شرفت له قيمة بدن قايها بدن ومركل يمقال عصب برتنا دقة هنيسان وبرتيني وبرتن كوميشني وبارلينو في شيال آدي ما سنتي كسر هذا من اللي نكش عليه هاي ولا لها قلبي سي شير قريب برنامج أصحابتا لو ذاك channel كا سبسكرايب نصارى سلي النبي صوبنا هنا صلى الله عليه وسلم هاي الماء من وصل هذه انت سويت كذا ويا كوب كيجي بان وتا البكيريو آد waxay noo maraysay sharaf iyo karaamo iyo ciise odaygii oo weerar lagu qaaday gaalka ahaa oo ay ku qaaday habartii dhinacay ka waday awal markii dambena wiilkii oo u yimi oo wiilkii uu ku bilaabay odaygii uu ku bilaabay inuu odaygii laftigiisa ku dhac inta yeeshay inuu wiilkii odayga la hadlo odaygiina inta xanaaqay ninkii uu ku soo dhimanayay intaasoo sano oo uu wax baray oo dee ahaa wiil uu diin baray isaga sida la tahay diinta faal sida laakiin isagoo ku xisaabtamayay wiil uu diin baray ayaa waxa dhacday inuu la soo doontay diinta islaamka iyo muslim iyo sheeko noocaas arrimo noocaas inuu la soo doontay kadibna waxa dhacday inuu odaygu ul inta banaanka u baxay kiyoon iska garan ul inuu soo qaatay wiilkii madaxa qaac afrikaan maxaa ku taqaan caruur dilow madaxuu ku dhuftay oo qaylaa yeertay gurigii waa la isla kacay calaa kulli xaal wiilkii dee dhakhtar buu tegay oo waa la soo daweeyey aabihiisaa dilay anu waxaa ila imaanayaa almuhim saddex iyo maamadii iyo kii baa waxay go'aansadeen inay tagaan Soomaaliya aadaan shacniga iyo wanaagga ninkan ka muuqda iyo nolosha silica ah oo ay ku jiraan baan isu qabanayn iyaga laftigooda marka loo eego ninkan wuxuu leeyahay baabuur qaali ah baan watay awla maamada u sheegtay haddana isaga ku leh baabuur qaali aan watay saasa waa kan xaqi ka dhacday oo wixiiba uga sheekeeyay moogtaa waa shaqaystaa si kasta xaaja ha ahaatee waxa dhacday wiilkii sheeku uga sheekaynaya xaqi ka dhacday saan weeye arrin noocaas uga sheekaynaya marka raalli ahaada waa iga dhacdhacayaayo dabayl baa iga riday marka waa qabtay marka hadalkii inuu uga kala go'o aad baan uga xumahay balse muhiimaddan idiin sheegayaaye waxa dhacday wiilkii wuxuu aad u tashkiiliyey saddexdaa uu tashkiiliyey boqolkiiba boqol meel buu saaray inay hooyadood raacaan maamadiina waa la ogolaatay nidaamkii oo xiran odaguna uu ka warqaba laakiin uusan waxba ku samayn karin wax allaale iyo wuxuu ku samayn karaana aysan jirin odagu waa ogaaday sheekada laakiin waxba kama qaban karo waxna kuma samayn karo wax uu oran karaa calaa ay xaal ma jirto xaajadu waa ku qabatay iyo qadar allaba waa la qaataa laakiin wuu maqlay carruurtiibu u goodiyey ma tegi kartaan ma raaci kartaan islaanta isma salaamaan meel bay ku kala xiran yihiin iyaduna waa ku xanaaqsan tahay oo lama hadasho ma salaanto ilaa waagi ay timi waa ku kacsan tahay ninka gaalka iyadoo dhowcilu khiyaamaysa maaha iyadoo yar buu khiyaamaysa hadda way ku kacsan tahay si kasta ha ahaatee waxa dhacday islaantii waa soo tagtay waxay soo aaday Soomaaliya waxa la socda afartaas la socda midi waa kii wadaadka ahaa gabadha guursaday oo landheeraha ah saddexna waa saddex koor leh waa u aamuseen danka ma laha macal gabadhu koor bay leedahay labada wiil
iyo gabadhuba koor bay leeyihiin macna koor waxaan ka wataa waxaan yaray halkan uga laadlaaday calaamada gaalada ah way soo raaceen mar alaaliye markay soo gaareen saa xuduudda uga gudbeen baa lala hadlay oo yiri hadaba dhageyst laakiin wuxuu yiri anagu idin kama celin karno xaaladuna waa adkaanaysaa waxaan iska daayay iska tuuro wax waayahay bay dhaheen waa iska tuureen iyagoo aad iyo aad uga xun oo ay la tahay wax ma aragtay mucjisa ah oo balaayo inay cirka kaga soo dhacday masiibo inay ku soo duntay iyadoo ay la tahay bay ka ogolaadeen diyaar bay noqdeen kadibna waa tuureen wax soo tagay marka waxay yimaadeen islaantii waxay timi iyadoo gabar iyo gabadhu biyada habaa la moodaa waa gabar reer abtigeedu eg odaga aabaheedan xoogaa buu caddaa xabashida cad buu ahaa xoogaa buu caddaa dherarkii iyo joogii iyo quruxdii iyo jamaalkii kaleetana gabar Soomaaliyeed baa dhashay ka wadataa way aad bay u qurux badan tahay dadkii waa lagu soo shiray Allah heblaay caruurteedii bil la timi waa kan dadku ilaa sidii kii oo kale ma arkaan koor ay wataan marka inay gaala yihiin iyo muslim yihiin ma oga wax wara kama hayaan jidka markay soo socdeen magaalooyinka qaar ay seexanayeen buu u khudbeeyay wuxuu yiri idinku soo diin ma haysataan halka ah idinku jirto laabta qarsada hadaa banaanka soo dhigtaan wixii idinku dhaca iyo ta idinku dhacda idinka isu geystay is ilaaliya is jira marna yaan la idinka fahmin yaan macnaha la idinka garan waxaas yaan la idinka garan diintaada min walbo laabta ka xaragood laabta ku hayso haddii lagu fahmo hadda dhibaato adaa isu geystay oo adaa dhaawacay siyeelay oo adaa dhalanteed run mooday bay dhaheen ugu yiri wiilkii maamadiina sidiisa la miday ku tiri waayahay dhibaato kasta ku ahaato caruurta niyadooda ku haysata dad jecel oo cirka u qaatay oo walaalo ah oo fiican inaabti adiga ma walaashay baa ku dhashay ina adeertay baa ku dhashay naagan qaraabanahay baa ku dhashay baaruuti la leeyahay caruurtan marka qoftaani hadii qofkii hanuun ilaahay la doono lama celin karo laakiin qoftaani boqolkiiba boqol iyada ku dadaashay waxay ugu dadaashay Soomaalidu waa dad qab leh ilaahay qab uu siiyay waa dad dhinac markii laga fiirsho laabta ka xaragooda waxay diidi jirtay oo ka xanaaqi jirtay inay kula hadlaan af xabash caruurteeda markii la weydiiyay waxay tiri xataa ilmaha markay laba ilmood la hadlaan oo midna af xabashi ugu weydiisto wax midna uu af Soomaali ugu weydiisto ka Soomaaliga ugu weydiistay baan wax siin jiray markii cunugu is xanaajiyana waxaan dhihi jiray orod ma garanaysaa qof xabashiya wax weydiiso ilaa anigu maahi xabashi maahi naag Soomaaliyada baan ahayo reer hebela macnaha qof dhib badan oo noocaas iyadu awalba aaminsan bay ahayd markii hore oo filinkaasi ka dhaadhacsan yahay waayahay caruurta marka saasay iyagu waxay ku barteen af Soomaaliga saasay ku yaqaanaan mid walba heer ha u joogo mid waa wada yaqaanaa midi macnaha xoogaa waxbaa ka qaldan walax barkood midba waa nooc laakiin midba meel buu joogaa oo caruur Soomaaliga ma garanaysa على أي حال سكست ها هاتين waxa dhacday
waxa dhacday in caruurtii dadkii ay ku dhex galaan si yar 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 oo aad u fudud, aad si u fudud inay dadkii ku dhex galaan ayaa dhacday. sababta oo ah qofku haddii uu dee luuqadii garanayo, luuqadii lagaga hadlayay meesha hadduu garanayo, dhib kuma haynayso, wax dhiba kuma haynayso inuu ummadii dhex galo fahmo. dee waddankiisii buu ka yimi camal, waddankiisii buu yimi. tusaale ahaan hadda qofka Jabuuti ka yimaada oo soo gala yimaada Jigjiga, ma wuxuu uga baahan yahay inuu luuqad barto, ama yimaada Boosaaso ama Hargeysa ama yimaada rimayo raali ahaada dagaal baan kula jiraa, dabayshaan dagaal kula jiraa. marka si kasta ahaatee dabayl baa ila dagaalamaysaa, waxaan u malaynayaa codka laftigiisa hawo iyo inay ka buuxdo baan u malaynayaa. waxa dhacday marka wuxuu iga go'ay wax xusuusee, macnaha qofka deegaanada yimaada Soomaalidu degto ma wuxuu u baahan yahay turjumaan, ma wuxuu u baahan yahay wax fahmo, may guryaha inuu kala barto iyo meelaha inuu kala barto mooyaane wax kale oo kaga sii xiran intaa oo intaas ka sii xeel dheer ma jiro inuu dadka iyo fahmo oo ma garanaysa. laakiin luuqad inuu barto uma baahna, sababtoo ah isagaaba Soomaali. carruurtu marka waa noocaas, waa carruur noocaasa oo luuqadda bartay oo Soomaaliga yaqaan. waa la fahmayaa in ay Soomaaliga barteen oo aysan ahayn, laakiin gabadha oo kale, gabadhi waa iska hooyadeed, gabadha oo kale lagama garanayo xataa lahjada hooyadeed bay leedahay. iyada iyo gabar kale oo nin qabo oo 2 carruur haysata oo iyaduna meeshii lagaga yimi, xariifadaasina waxay la mid tahay wiilka weyn oo markaa noqday ninka muslimka wadaadka noqday bay la mid tahay iyaduna. taasina waa 100% bay keentay muran iyo hadal kuma jiro lahjadeeda, macnaha hadalkeeda, luuqadeeda. waa qof luuqadda taqaan, si sax u taqaan, Soomaali aadan ka garanayn, wax yar garan waayay isku jirin, sababtoo ah hooyadeeda iyadoo yar la kortay si fiican bay u taqaanaa marka Soomaali. kuwana hadda Soomaali bay ku dhex jiraan, walaalkood gaarigoodii dad gaari ummadi leedahay raaca oo rafaada bay ahaayeen, ma ahayn dad ma garanaysaa, ma ahayn dad iyagu baabuuray leeyihiin fuula, walaalkood baabuur leeyahay, ina adeerkood miduu leeyahay raaca ma ahaynba. dadkooda oo dhan waa dadaan waxba haysan. halkaanay waxay ka noqdeen laandheerayaal, baabuurkan raac, kan ka deg, waaba ka haysta, mid baaba la booday. walaalkood aad buu ula dadaalayaa inay diinta islaamka bartaan. dadku idinma fahmi karaan, waxaa aaminsan tihiin aaminsanaada. wakaa awalna wax badan buu ka soo dhaadhiciyey, markaana waa u raacshay. waaye waxa dhacday marka markii dambe ugu dambeyntii waxa la isla soo gaaray inuu wiilkii baabuurka iyo kacaysanayay uu jeclaysto, ilaa waa nin af Soomaaligii fahmaya, inuu soo qaato cajiladihii, inuu iska dhageysto, inuu diinta islaamka iyo waa kan iyo walaalkiisa muslina, waxa walaalkii ku muslimay iyo sababta uu muslimka ku noqday iyo sida uu muslimka ku yahay iyo waxa inuu sii baarbaaro, inuu kaasina muslimkii jeclaado, inay iyaga dhexdooda ka hadlaan, inay muslimka doodaan, inay magaranaysa, inay yiraahdaan cidlaynu ku soconayniyo, cidlaynu ku soconay, dad gudcur cidla gudaya baynu nahay, inay isku afgartaan gabadhii iyo labadii wiilba, hooyo iyo waxa naga saxsan wiilkaas hebel. kii isagu xaas buu leeyahay, carruur buu leeyahay, khalaas iyagiina mudday joogaan. maamadii maadaama ay kuwii yaryaraa ka wadato, qolyaha waaweyn danba kama leh, waa carruurtoodii oo ka maqan, laakiin wax dan ah oo weyn oo saa u sii ridan kama laha. keliya
in ay gaalnimo ku dhintaan baa waxay la tahay wax aad u weyn la ah oo de wax weynna waa tahay oo ay ka xun tahay oo ma garanaysa calaa iyo kulli xaal maalinkii dambe gabadhii labada caruura lahayd oo la jamada ahayd af soomaaliga taqaanay dalaq waxaa soo orday gabadhii ninkiiba isku xanaaqeen ninkiiba caruurtii ma garanaysaa adigu way ku murmurmeen caruurtii bay soo qaaday guriga aabaheeday dhigtay waa sii daysay saaxiibadda waa sii daysay Soomaaliya macnaha waxay ka tagtay Itoobiya ka timi Soomaaliya ku sii daysay waa soo dhaqaajisay hadday Soomaaliya timi dadkii iyo meeshii deganaayeen deegaankii bay soo abaartay reerkan waxaa lagu saliday koortii bay sidataa dhinacan Soomaalida iyo markay soo gashay ay waxay aragtay inay dadku asturan yihiin af Soomaaligana iyadu boqolkay keentay macnaha ma aha af Soomaali yarow iyo wax yar inay fahmayso iyo dhasabta ma aha hay warwayga go'ayaa mashquulkayga badan raali ahaada marka si kasta ha ahaatee af Soomaaliga qoftaani boqolkiiba boqol bay keentay waa qof aad af Soomaaliga u taqaan pure Soomaali dhalada soonihii bay soo gashay deegaankii bay isku soo tuurtay astur bay bilowday iyo inay waxeedii qarsato bay bilowday adduunkan maanta wada telefoonka ah oo halkaasaan joogaa heblaayo xagee maxaa qaldan waa kan isa sax iyo ma jiro waxaasi ma jiraan adduunkan horumaray xaaladdu ay nooca tahay maaha laakiin waa la iska dhex socdaa gabadhii koorteedii bay leedahay magaalooyinkaas Soomaalida oo xuduud kale bay tiin gabadhuna ma aha gabar laga fahmaayo hadalka aad u dareema gabadhu ma aha gabar laga fahmaayo in ay Etoobiyaan tahay maaha laakiin luqadeeda ay ku hadlaysaa waa sax weeye marka qoladii Soomaalida ahay oo ugu horeysay oo ku soo hormartay waxay dhaheen naade maxay tahay koortaan balaayadana siita Soomaali baa tahay xagee ku baaday ku hogtay maxaa dhacay waxaana siita maxay yihiin baa ceebtaada miyaad xishoonayn magaala tahay gaalaya wuxuu waa gaalo no anoo soo gali may aniga ma garanaysaa hooyaday waxa la yiraahdaa inay hebel oo reeben ya gabdhii Soomaaliyeed waxay ogaatay ilaa markaas waxay ogaatay in la leeyahay gaalo laakiin in calaamadan ay dadku beegsanayaan ma si fiican ba uma fahmin laakiin in iyada loo jeedo la leeyahay halka laga arkayo markii ugu horeysay way aragtay markii dambe islaan bay xoogaa marka lacag bay sidatay iyadu cid baryaysa iyo ma aha lacagta Etoobiyaanka ay ka soo baxday marka oo deegaamada Soomaalida qaar lagaga gato baa jira lagaga sarifto qaarkoodna waxbaaba lagaga gataa marka waxba kaga gadan kartaa deegaamada Soomaalida qaarka birtan waa ku gadan kartaa lacagta kale oo ka shaqeysa deegaankaasna waa ku gadan kartaa marka deegaankii inay ka baxaysay aragtay xaggan u socda waxa la yiri lacag adaa sidatid Etoobiyana sarifo Soomaali ka dhigo gabar bay marka hooyadeed isku reer noqdeen oo laakiin de xagee isku reer xagee ila Soomaali waa taqaanaa waxay ku soo galaysaa 1900 xagee aadnaada fog bay kaga imaanaysaa ma garaysaa meelahan dhow ma aha marka way la hadashay gabadhii waa la hadashay waxay tiri hooyaday baa reerkaasa laakiin anigu Etoobiyaan baan waxay tiri okay maadaama aad wax xabashiya tahay runtaan kuu sheegaya bahashaan meesha kuugu xiran iyadu ma oga walaalaheed oo dhan gaalay u qabtaa waxay tiri bahashaan dhunta kuugu xiran waxay ka dhex soocaysaa dadka qof Soomaali ku hadlaya tahay Soomaali toos ah oo fiican baa ku hadlaysaa haddii aad sidan adoo aad tagtid waxay ku arkayaan Etoobiyaanka kale
marka way ku dhibsanayaan, way ku nacayaan, aad bay ku nacayaan. marka way ku dhibsanayaan bay tiri, aad iyo aad iyo aad bay ku dhibsanayaan. waxaana laga yaabaaba in barnaamijka mararka qaarkood dhibaato lagu geysto baa laga yaabaa. marka waxaan kugula talin lahaa waxaan inaa iska firto. waxay tiri waa noqon karaa intaan furi lahaa, waa noqon karaa mabda'ayga weye, waa aaminsanahay. aaminadaada cidi kuguma haysatee, ama noqo ama bahasha iska fur, waxba kaagama dhexeeyaan. anaa runta kuu sheegaya. gabadhii qarqaris bay gashay. magaaladii ugu horreysay markay soo gashay bay waxay gadatay xijaab halkaa u joogo oo qam ah, waana sidataa hoos bay sidii siliskay u sidataa. toos marka waxay abbaaraysaa deegaankii hooyadeed joogtay iyo walaalaheed. gabadhii waa socotay, say u duulaysay bay waxay dalaq tiri oo gashay deegaankii hooyadeed joogtay. xijaabna waa sidataa. markaan diric inta la gashado googolada la'aan la socda ma jirto. macnaha xijaab bay dalaq isku siisay, way socotaa marka. bartaasay sii soo duulaysaa. marka maamadii ayaa waxay ku tiri, horta xaafadihii bay soo gashay. inay allah gabadhii maqanaysa af Soomaaliya ku hadlaysa, qolaa soo qaxaysa. waa lala soo orday, waxaa loo keenay hooyadeed iyo walaalaheed bay meeshii ku dhegdhegtay. guri bay degan yihiin gaara, iyagu ay degan yihiin, walaalkood leeyahay. guriga iyagaa leh, marti maaha, guriga iyagaa leh, waa guri ay leeyihiin. xaafadii bay degan yihiin. walaalkood hantida abtigiis maahaana mid gaara buu samaystay oo leeyahay. markaasuu hantidii buu dejiyey, oo guri gaara bay degan yihiin. markaasaa laisku kelisaday. gabadhii baa la arkay dee markay iska dhigtay xijaabkii baa la arkay. tii ay muslimnimada ku ogeyd ee gaalnimada ku ogeyd oo walaasheed ahayd baa halkaa intay farka gelisay bay rig ka siisay oo ka jartay. maxaa dhacay? waa balanbalayay bay bilow. musbixkaari kugu dhacday. musqushay dalaq ku siisay iyadoo ujeeda, iyadoo arkaysa bay musqusha inta gashay la gashay. nays iyadoo labay kaga tuurtay. waabata iska oyday. waa la aaminsan kari waay. ilaa qofka si tartiiba iyo wax looga jaraa, laakiin hal mar dalaqdaasi dhibaatay ku tahay. almuhim gabadhii aad bay u walwashay, aad bay uga xanaaqday arrintaa. bismillaah. mar kale qisadu way iga kala go'day. dabayl baa macnaha xataa muuqaalka qaybtaas waa arkaysaan. waa iga dhacay moogta, dhinaca kaloo gaaray, dhinaca kaloo aaday. marka si kasta ha ahaatee, gabadhii oohinteedii iyo bararaqdeedii adigu uun laga joojiyo. waxaa layidhi nanaga aamus, xawaalan baa tahay, annagaa kula mid ahayn. oo si fiican baa gabadhiina loola hadlay. koobkaygu waa geedka go'an, ama meel saxa qurux badan iyo jawi qurux badan iyo neecaw iyo beer iyo adduunyo aan dhex joogo ama aan guri ku jiro, kulli waa isku mid. waayahay, waxaa jirta marka gabadhii waa joogtaa, carruurteedii waa ka timi, meeshii bay timi. gabadhii jicsin baa la siiyey. reerku iyagaa og inay gabadhaani gaala tahay. hooyadeedaa og, walaalaheedaa og, laakiin wiilka weynaa oo walaalkeeda baa dayn waayey. marna xaggu kaga yimaadaa, marna waxbuu u sheegaa, waa dayn waayey. nin diinta aad iyo aad u bartay oo aad u fahmayna waaye. gabadhii waa la hadlay, xaggu kaga yimi. gabadhii waa muslim bay noqotay. gabadhii muslim markay noqotay, alxamdulilah,
markaas saddexdii yaryaraa iyo labadeedii curad baa u muslim ah. 5 xaggana qaar baa kaga maqan. maamadii mudday joogtay, gabadhii waa joogtay. gabadhii waxay tiri caruurtaydii xaalad adag bay ku sugan yihiin, hadday ku barbaaraan waxaa hadday ku barbaaraanna oo gaalnimada ah dee hadhow ma soo celin karee aan doonto. habartii baa tiri, maamadii baa tiri may wax waliba iga saas inaada tegin. wiilkii baa la hadlay, wuxuu yiri hooyo iska daa, hebel baynu ku daraynaa, hebel baa raacaya, hebel baa u tegaya, hebel bay israacayaan, waka waxba gaari mayaan, hadhowna way soo noqonaysaa. wiilkii la rabay in lagu daro baa diiday oo yiri aad mayaan, marraba mana doonayo, mana aadayo, umana socdo, maxaan ku falayaa anigu? No, waa diiday. maamadii baa tiri anigaa raacaya, iyagii oo dhan baa diiday. ciyaalkii baa yiri may aadi maysid hooyo, annagoo halka joognaa aabe haddaa u tagtid waxaa laga yaabaa inuu aabe madaxa ku dhangalaas. may tegi maysid, ma aadaysid. maamadiina waa loo diiday. almuhim gabadhii iyadoo keligeed ah bay soo baxday. dhaqaalihii waxbaa la siiyey, way tagtay. marka si u socotay meeshii bay tagtay. xaaladda meesha ay degan yihiin waa iska danyar dadkaasi. caasimadda ma degana, waa dad maaragtay iska reer tamareeda. caruurteedii adduunye ay u siday, waxay u siday bay u geysay, waa ka farxisay, waa kan. wiil walaalkeeda bay aragtay, wiilkii bay la hadashay, waxay tiri walaalow hooyo aad bay kugu oydaa, hooyo aad bay kugu qaracantay, hooyo waa kan. midkaasi waa midaan gaalnimadan dadkan iyo koorkoor iyo waxaa iyo shaqa aan kulahayn, koorna male waxna male. wuxuu ka mid noqday isla gaalada lafteedu ka mid noqday, laakiin isagoo ka mid ah buusan haddana ahayn kuwa kan oo kale. wuxuu iska raacay macnaha madhab kale miyaan dhahaa, adigu wax kaleu raacay, nidaam kale oo iyaga dhinacooda abuu iska raacay. qola kaleu isna iska aaminay khayaaligoodii. labadooduba khayaali bay ahayn, khayaaligii kale buu dhinac ka qabsaday isaguna. qoladaas khayaaligii wadday buu raacay khalaas. marka isagu baashiina ma sito, waxna ma sito, shaqana kuma laha. waxay tiri hebel baabuur buu wataa, iyaga baabuurka wax weyn laha. baabuur buu wataa, hebella baabuur buu wataa, hebella baabuur buu wataa. saddexdii wiil oo walaalaha ahaa baabuur bay wataan bay tiri. hebel gurigiisay degan tahay hooyo, waa kaa. hebella maalin dhow baa gabar loo doonayaa, gabar buu aroosayay, sheeko noocaas. gabadhii walaasheed ahayd biyadda habbay ogtay halkaanu, iyaduna xaadir weeye. almuhim yaanan sheeko idinku daalinay, gebagabadii baynu maraynaaye. wiilkaasna xoolo iyo dhaqaalay kusoo tashkiilisay, way keentay labadeedii caruuraha, way u tagtay, adduunyay siisay, waxbay siisay, oo waa kan waddaday la soo cabtay. waa soo goysay. kii walaalkeeda ahaa baa la soo qaaday, waa soo dhaqaajisay. soomaaliya magaaladii ay garanaysay bay keentay. kani koorna male waxna male. gurigii buu yimi, hooyadii ashhadu an laa ilaaha illa allah ka baxaysa, allahu akbar, allahu akbar. hebel waa tukanayaa, hebel ayaa tukanaysa, hooyo waa tukanaysaa. war yaa ilaahay yaqaan, maxaa samaynaysa? maxay tahay waxaa samaynaysa? annaga dad muslimana maan nahay, oo waa kan madaxaaba weynaaday. maxaa idinka qaldan buu yidhi. miidin dad diin leh oo bahalkii oo lahayn dee isagu diintiisu sheegaya.
هو يدين الله هذا الشيء يقدر من الله هذا ويلكا ولا كريوان نب حق لك قيمي حق لك قيمي حق لك قيمي سك استوالي يلي ولا كريوان مدة لبس سنة أبو لجو لبدي السنة سك استليل وح كستليل إن دينكو وحولكو أدق معها هذا نوع مبدئ يسقو أدق أو أن ربين متكرجلين wax kasta oo lagu akhriyay hooyadiis la hadashay walaalkii la hadashay walaashii la hadashay walaalkiisa kale la hadashay walaalkiis male ninkaani waa soo taagan manaba akhrisan karaba wax kale wuxuu aaminsan yahay waxa isagu uu aaminsan yahay wax kale ma geli waayo tagwiilki lacag iyo waxbay siiyeen waa walaalihiis waa dhaqaajiyey xogaa yar farqabsi ah bay siiyeen waliba maamadu ay inta badan siisay waa hooyade magaal ha ahaada muslim ha iyada dhashay xogaa farqabsi bay siisay markay aragtay kanimiday celin karto iyo loodin karto iyo midna inuusan ahayn bay xogaa gacanta u sii gelisay oo isirba halkaa dadka meesha degan ha ka nolol roonaado markaas lacagtii la tigi waati kiyo lacagtii taa meesha tigi hadii sababa alaab ka qaatay xarifka shaqo bilaabay dhac 6 bilood 7 bilood buu joogay wixii baa u kala kaxay ganacsi fiican sababtoo alaab soo gata waa qaada waa keena waa qaada waa keena waa dhig waa qaatay waa baxsaday sheekadii ra'iisul wasaare waa baxsaday waatigii waan ku soo daray على أي حال نيجي روح النقطة جديس لي حولهان ماشو كأني بالس كربا متكير ولا لك سايرني وحولهان حيل تاني هو يسوس السي يبل أنت سوسي يبل أنت سوسي هو يسوس هذا محورة ما تدير إن هو يبقى حولهان سيسي وكوباش عليه وماشي الله فديها طبعا نمو لفديها حيوان نمو لبعد عقود بوح كدي لغاتشي نولجا عريق اسكدا إنه حوالي هلا نولجا نولك وكل راح عيه معناها قاريجا وكتجي ماشي سومالي وكوجلي فعريق أمرك وسوى رقاجي سومالي طلق وهي هو قبل ولا شيء سهل شرف الله دوني شرف له جورسدي الدنيا ما قرنا يساعي حول اللي سيء ولا له وين قبل الملاذ هاي عجائب عرور أي حسته دور عيال أي حسته كي كلا ولا الكيسها أو دحى وجورسدي قبل يواتن عرور بيدشي كانوا جورسدي كي كلا تعرور بوليه وهذا دقيقين بقى فاميل دن oo degan waay maamadina waa joogtaa hooyadiisii dadkiisii weyn waa koorle koorsita intirisii baan jirin cid ka bixisay baan jirin hadalkiisu waa badal galabana si fiican wax uma hadalkii ilow intii hooyadii kula hadli jiray kajaja weeye Soomaaliga xoogaa waa yaqaana waa fahmaa kulligiis ma xaman kartid laakiin حاجة اللي أنت أكو أذك لكن واحد الله على ما حما سوتك سوى كور له حافظ السوق لو قال باي هذا غير كان أول بقالة يهانجر ومسلمي يعني كورتي والله نقطور كورتي والله نقطور وابكو إن دبل كورتي كل جين شكله بس وش على مرارة الله سيدي قبضة ومرارة الله سيدي قبضي ومرارة الله مركي دمبه هذا يقول له قنعي هل يريني وماشان تذكرني المسلمين وي حلقة فوق قال ما يقانا ما أركان يعني مدهي أد وضعي وعد هذا المذوب وكدليا اسكده
waxaan faraha ka qaad wuxuu yidhi qori baan samaysanayaa macnaha alwaax baan ka samaysanayaa mid qurux badan oo aan qortay baan samaysanayaa war allaha allama yahay baa layidhi joog aga dhigo wiilkaa yarka ah waa ku madax adkaadaysna si kasta waa yeeleen waa muslimiin kari waaye markii dambe wuxuu yidhi anaa kaskayga wax ka ogaanaya iga leexda soomaaligii marka laguma xado wacdi bay hooyadii intaa dhegeysanaysaa wacdigaa ay dhegeysanaysa wuu 24 saac dhegta u dhigaa waa dhegeystaa waa been buu yidhahdaa wuxuu sheegayaa ninkan maamadii iyo isaga qurtum maamada haddii culimadeeda qof wax ka sheego la kala badbaadi maayo culimadaas ay dhegeysato dunida ugu jeceshahay qofkii wax ka sheegana dunida ugu necab tahay lagama yaabo marka inay wiilkan ka aqbasho wiilkii wuxuu keenay inuu caadi soo noqnoqdo inuu marba marka ka dambaysa caadi noqdo walaalkiisiina waa caajisay weynaa waa caajisay kan kalena kuwan kalena dhibba kuma haya ninkan ma la joogaa horta haa khalaas baabuur raac kan yaa ku siiyey ilaahay baa siiyey leeyahay wuxuu leeyahay ma ilaahay keeni mise ilaah muslimiinta inaga hal ilaah baynu leenahay waxa kale sheegayso dhan waa baadil nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waa nabi maxamed bas ilaahna ma aha waa nabi waa shakhsi ilaahay soo diray waa qof ilaahay doortay waa khayru khalqullah intuu ilaahay abuuray kan ugu khayr badan khalaas si kasta waa ula hadleeno adigu markii dambe ninkii wadadiiba kusoo dhacay sidii loo tashkiilinayay wadada kusoo dhacay isagiina waa muslim wuxuu yidhi waxa ku seef garaysan ninkan ku program aad ugu programsan oo bilow ilaa dhammaad uu la rabay inuu tago markuu yimiba inay lacag inta u ka qaado oo meeshii tago oo dukaankii walaalkiis mid ka khatarsan samaysto buu rabaa laakiin dee ma suuroobayso taasi suuroobi mayso waxay rabaan inuu muslimo laakiin isaga uu ka diiday wax kasta dhinac kasta waa kaga yimaadeen waa ka diiday inuu muslimo waa ka diiday laakiin dhaqaalay siiyeen kaasi kana wuxuu muslimnimadii buu qaatay wuxuuna rabaa inuu xoolo siiyo xoolo ay siiyaan oo meeshiisii tago barta oo ka miisto oo kii walaalkiisa ka hanti bato tegi maysid baa layidhi meesha ku noqon maysid hadda shaqayso abtigiis buu shaqadii la qabtay ninkii wuxuu noqday nin libaax dhalay ah libaax sanka taabta ah oo aan kaftamin oo aad u shaqo badan meel baa loo furay oo gacanta laga saaray oo la yidhi haye daadi meeshii uu kala wadaa dadkii barte magaalada aad baa looga yaqaanaa ma fahamtaa ninkan carabkiisa xoogaa adag laakiin waa la yaqaanaa aad baa loo yaqaanaa waxa la leeyahay ninkan waa in hebel baa la leeyahay gabar in hebel baa dhashay baa waa khalaas in hebel baa dhashay muran kama jiro waa shib haddii mar la dhaho ninkan marka abtigiisu uu shaqo bilaabay markuu abtigu uu shaqo bilaabay lacag fiican baa soo gashay wuxuu fikiray hadduu hadda ka tago xogaaga lacagta qaato xagga tago waa wax kasta ku imaan kara laakiin hadduu halkiisaan lacagta ku haysto isagaaba haystaba go'aan buu gaaray adigu maamadii baa joogta lacag bilaa buu qaataa lacagtiisa bilaa hooyadiisu keensadaa waa ku urursadaa guriga markuu yimaadana meesha markuu joogana meeshuu cunno ku cunaa
markuu guriga yimaadana gurigii hooyadiisaa buuxa waa uusan cidna wax uga baahnayn wax allaale iyo wuxuu doono uu ka damsiin karaa. wiil labadii gabdhood gabadhii labada ciyaalka wadatay ciyaalkii iska daa ciyaalku awalba waxaas waa daba raaci jireen laakiin waxay ogaayeen ama ka dhacsanaa maba ahaynba markay yimaadeenoo iyaga markay gabadhu timiba dugsi quraan bay hore ku geysay macnaha ciyaalkeedii dugsi quraan bay hore ka geysay تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى قل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر يذبح وأخريه أخرج القرآن قال أخريه وبصاص يبقوا مسلمين إلا أول بيقوا قال ما حين عروروا وقت المكستو أشاو كل أشياء فطرة إسلامية أبيه ساكدية سيدو النبي وشيري أبيه سامجوسي أما النصراني كدية فاهمسا أما مسلم لكن المكسر لكن وحقول أشياء فطرة إسلامية وهي هاي خيرك على كل حال هل كان يقصد جبان مركز وحكم مقن صدح مياه كمقن سلام ذو على كل حال السجال بين الشيء سجال كأي الشيء أو النور أنت النور والسجال سجال كأي الشيء وحأجوجا هل كان لح هل كان واحد جوجا صدح كين نقضي يلا بقى أن إمام بقى odaygii aabbahooda ahaa meeshii uu ku dhintay mudduu odaygii sii maqan yahay waa dambe oo ay 3 sano ka soo wareegtay oo nimankaana ay muslimeen oo qaar guurguursadeen oo jawgu u saxan yahay waa halkaa waxa ka soo dhacay mid ay maamadu dhashay dhag isagoo markaas isagoo koorna masjid laakiin isagoo caadiya uu yimi markuu yimi kaasaa warkii sheegay in odaygii uu sii mootan yahay dada intaa la eg maaragtay adduunkii ay xaaladdu magaranaysaa isbedeshay joogu inuusan joogii ahayn dadku inuusan dadkii ahayn xaaladdu inaysan xaaladii ahayn gurigii buu yimi gurigoodii baa laga tukanaya allahu akbar jimcaha khamiis bay isku wada gureen jimcahay ah reerkii goormaa loo dambeeyey reerkii yaa diinta ka bedelay war isagiina waxaa lagu bilaabay wanaag iyo waxaa lagu qaabilay almuhim yaanan sheekada idinku sii dheeraynay isagiina wiilkii waa muslim wiilkii laftigiisii isna waa muslim wax badan kuma qaadan laakiin waa muslimay horay buu ka raacay maamadii loo sheegay odaygii dhimay caruurtii nimankii halkan joogay Soomaaliya joogaan maanta reerkaasi waa family balaaran oo ka kooban rag ahaan 60 nin meelahaas bay ka kooban yihiin sida markii la sheegayay waxay ka kooban yihiin reerkaasi 60 58 inta u dhaxaysa bay ka kooban yihiin ragga weeye maaha dumarka waana joogaan jawgii hadduu isbedelayna abtirsiga hooyadooday wataan nimanka waa niman Soomaaliya xabashinimadii iyo xabashida ahaayeen Ethiopian wixii oo dhan waa siibatay bannaankay ku dhacday taasi idinaha saacadan cid u taqaana inay xabashi yihiin ma jirto magaalooyinka Soomaaliya bay kala degan yihiin maamadii inta la joogtaa waa yar tahay wixii kale tan walba reerihiisu meel la degan yahay magaalo gooniyo degan yahay meel gaar u degan yahay nin walbiba khalaas ubadkiisa carruurtiisa haystaa
iyagii caruurtoodii baa hadda caruura dhalay oo tiradii ka batay maasha allah tabaaraka allah. faamil ballaaran oo Soomaaliya reerkaas xabshi bay kasoo jeedeen cid tiraahda xataa ma jiro. nin walba wuxuu yidhahdaa Soomaali baan ahay, in hebel hebel baan ahay oo kaa wuxuu ku abtirsadaa awowgiisu toos ugu abtirsadaa khalaas waana la yaqaanaa. laakiin dad hadda dee si toosa u yaqaanaa maaragtay way buuxaan oo kuwa magaaladii jooga aad baa dadku u garanayaan. laakiin kuwa meelahan kala jooga reer hebel baan ahay, wiil in hebela halkaa jooga iyo wiilaluu dhalay iyo baa dadku yidhahdaan khalaas. cid xabashi ahaan u garanaysaa ma jirto, iyaguna ismaba yaqaanaanba. halkaas waxaa kaga haray midkii ganacsadaha noqday oo weliba u dilaacay ganacsado weyn oo Etoobiyaan oo laysan haysta oo ganacsada buu noqday kaas, iyo kii kale oo walaalkii la shaqeeya. khalaas qisadii cajaa'ibka ahayd intaas ayay kusoo gabagabowday, intaasayna ku dhammaatay. kulligood reerkii inay muslimeen, labadaa ka maqan iyo odaygii gaalnimada ku dhintay mooyaane. inta kale gabadhii weyneyd oo labada caruura lahayd waxay haysataa 2 bohood oo kale oo Soomaali ah oo reerihii meesha deganaa ah bay midba u dhashay ciyaal gaara. midna 2 u dhashay, midna waxay u dhashay 4. 8 iyo 2 ay wadatay, 8daasay haysataa. ma calaa caruurtii tamaske manaske nuguse kadhishe badhaqa lalahaa jeegadaa loo kaale ka sitaaday. waxaan Cabdiraxmaan baa la yidhahdaa, gabadhiina waxaa la yidhahdaa Nasra Cabdiraxmaan. bal kaale adigu dee tamase uu jiri iyo bahalkii u bixi finish. sheekadaas reerka halkaasi ku dhammaatay. waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. nabadgelyo, nabaadiina iyo nolol kulantid warsan iyo wanaagsan.